shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda amuuraha dibadda ee waddanka Masar oo uu Soomaaliya uga soo qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka koobaad ahna wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibbi ayaa ugu horreyn sharaxay waxyaabaha muhiimka u ah dalka Soomaaliya runtii aad ay adduunyada walwal ugu muujiyeen laakiin waxaan u sheegnay in dhibaatada marka hore ay ka timid oo ay dhibaato u geysteen badda dalka Soomaaliya sidaasina waxaa yiri Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibbi oo maanta aan kula kulanay xarunta shirkaasi ka socda ee magaalada Qaahira ee waddanka Masar. shirkan wuxuu ahaa aad caalami u ah shalayna mid kale ayaa dhacay oo dawladda Masar ay qaban qaabisay oo contact groupka adduunka inta ay khusaysa arrimaha burcadbadeedka oo 62 dawladood ah wasiirada inta badan iskugu yimaadeen wasaaradda arrimaha dibadda dalka Masar ay diyaarisay laguna qabtay saad ula socotay xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar. shirkani wuxuu ahaa shirkiisii saddexaad kiisii hore waxaa lagu qabtay Masar oo bishii Maarso kii ku xigayna kan tago Denmark buu ahaa oo lagu qabtay Copenhagen magaalada caasimadda u ah dalka Denmark. kan Qaahiro wuxuu dhameystirayaa sidii wax looga qaban lahaa xaaladda burcadda Soomaaliyeed ee dhibaatada weyn ku haysa mataqaana adduunka. shirka gunaanadkiisa iyo plenarygiisa waxaa lagu qaban doonaa haddii la raalli ka noqdo 29 bishan waa laba beri ka bacdi oon iskugu tagi doono magaalada New York dalka Mareykanka headquarterka United Nations. runtii aad bay walwal badan uga muujiyeen dawladaha adduunka laakiin waxaan u sheegnay walwalkan iyo dhibaatadan in uu ka yimid dhibaato ay u geysteen marka hore badda Soomaaliyeed oo sun ku shubeen ay mataqaana nuclear waste oo ay ku daadiyeen kalluumaysatada Soomaaliyeed ay uga caagiyeen in ay ka kalluumaystaan badda Soomaaliyeed shabaagtii kalluumaysatada ay gureen biyo kulul ay ku shubeen mataqaana kalluumaysatada Soomaaliyeed dhibaato badan u timid kalluumaysatada darteed ayaa kalluumaysatada daacaro baahi dhibaato dalkiiba ka jirto guud ahaan waxay isu bedeshay inay yiraahdaan war maxaad ka qabsan kartaan idinku naftiina bedelka wuxuu keenay inay galaan dambi oo ka sii weyn wixii ay islaayeen waxbaad ka samaysan kartaan oo noqotay oo igu gudbaan mataqaana Pacific taana ayagana way garowsan yihiin laakiin waa sidee iyo habkee ugu wanaagsan wax looga qaban karaa igu doodayada ku saleysan yahay shirkan maanta runtii dhacay adigu goobjoog ka tahay arkaysan mataqaana soo qurux badan loogana soo qayb galay ilaa 360 ayaa ka soo qayb gashay wadan garan kartaa culayska uu lahaan kara maartay wixii ka soo bixi kara. sidoo kale waxa uu sheegay Professor Ibbi haddii la kaalmeeyo dawladda Soomaaliya in gabi ahaanba la sugi karo amniga dalka Soomaaliya. runtii haddii dawladda ku beelgaarka saa ula socotid laga bilaabo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed xafidullah ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid safaradii ay ku soo kala bixiyeen meelihii hadda ay tagayeen oo dhan waxyaabaha ugu weyn oo laga hadlayo wuxuu ahaa sugitaanka amniga dalka Soomaaliya. marka la leeyahay amniga sugitaanka dadku waxay u maleeyaan in caasimadda la sugayo amnigeeda qura caasimadda ma dalka dhan baa u baahan amnigiisa in la sugo burcadbadeedu badda kama dagaalanto waxay ka gooshtaa dhulka qof markuu dhulka ka baxo ayuu badda geli karaa saa darteed waxaan u leenahay waxa waaye in amniga dalka gudihiisa la sugo dawladda lagu saacido waxay amkaaniyaadka uga baahan tahay in amniga ku sugto. macalla wasiir sida la socotay heshiiskan Kenya iyo Soomaaliya ay galeen qaar badan oo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ka mid ah waxay ka muujiyeen dareen cara leh sida la socotay waxaa la leeyahay heshiiskaas ay Kenya la saxaxatay dawladda Soomaaliya isla markaana u saxay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame aad bay ugu fududaatay xukuumadda midnimada qaran ee Soomaaliya maxaad kala socotaa macluumaadkaas. idaacadaha Universal TV oo kortan diyaar u nahay in shacbigu si kale dhageysto oo aan rabno in si wada hadal oo joogto ah oo sax ah inaan wada hadalno shacbigana aan maabka dhigano maabkoodan ha keenaan maabkana waa keen horta laguma fududaanine bisha May 13keeda ayuu dhaci lahaa haddii aan la saxiixin Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo annaga u wakiilanay golaha wasiirada oo markaa Nairobi joogay aanada wasiirka mataqaana iskaashiga caalamiga inuu u saxiixo ummadda Soomaaliyeed. anaa horta wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda anaana ahaa inaan tago oon saxiixo laakiin bacdama wasiirka iskaashiga meesha joogo asaan u wakiilanay wasaare ku-xigeenkana waa joogay Sheekh Xasan laakiin waxaaba ka sii daran waxyaabaha lagu fududaalay haddii aan la saxiixi lahayn consequence-ga keeni lahayd raggan hadda la aqoon baan leenahay maxay ka qaban lahaayeen 13 May waxaa ku ekaa xataa 200 nautical mile ee 89kii bishii 16 September la saxiixay baa ku ekaa waa ku ekaa waxaan lagu wareejin lahaa badda Soomaaliyeed oo dhan maca 200 nautical mile aan hore u lahayn ururka la yiraahdo ISB International Seabed Authority oo United Nations hoos yimaada
طيب كاس وحوى رئيس الوزراء كحوين كأهنا وزير كلوميسك إقرارات كبدا بروفيسور عبد الرحمن حاج عادل إبي أو إنه جو الرمى الشركة ما أنت كفر مي مجرد القاهرة إسلام كانوا لو جهل يعرمها برعض بيت كيسدا عالم كا ما صنتها بروفيسور